السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وجدين عشركي عدسية أرديدا عشركي سلبات أي كاميرنا وأن بلنقادني وهاي هو خاب كلوكال استعماله. dadka arday inta soo weydiisay fahansiin in uu hal macna uu leeyahay meesha isku isticmaalada tahay laakiin marka jumlada la dhisayo ee meel iska bedelayaan marka asla fiirino horta hudan hore u saarayna xalana waa wakati waa nyakati ka tirsan waqtiyada na Swahiliga uliopo uliopita ujao timilifu iyo mazoea huda marka ni wakati mazoea waa waqti mazoea macnaha wax wal mar walba dhacawa isla fiirina marka mifano tusaalooyinka oo hu afiirneena isla jumlooyinkaas waxa ka dhiseena isla jumlooyinka soo celinayna anagoo isticmaalayno huwa say isku bedelayaan bal arag marka kimaana hakuna tofauti macna ahaan wax iska bedelayaan malaha qoraalka loo muxir oo iska bedela marka hadii qaab hebel aan dhahdo qaab kale ma dhihi karto adoo huwa wato adoo hu intana isticmaalayo qaabka huwa loo dhahay ma dhihi kartid laakiin kimaana hakuna tofauti tusaalooyinka marka uu aad ka dhisnay mimi hukula ugali ani waxaan cunaa ugali maxaa tusinayo cunaadaas huuda goorma cunta kila wakati waqti walba cunta maxaa tusinayo huudaas meeshaas hadhihin waqti kuma jiro waqtiga huwa dada waqti wuxuu u yaqaaniin na li me iyo ta na oo uliopo me oo timilifu ta oo ujao iyo li oo uliopita afartaas badana lagu cilciliyaa oo soo laabto la isticmaala ni likula alikula atakula amekula unakula naadaas iyo meedaas dadka raadinayaan lakini hakika ni kuwa hu ni rahisi kwa kutumia waxay ka fududahay waqtiyadan kale ilaa waqtiyadan kale la soco hadii hilmaanto nafsigaas isticmaalayso waxa u taagan hadhow waa qaldan automatically badana anageenan Soomaalideenan nasiib hadda area meesha joogna amal isliyo kale qof arki asaga isqaadkaas mar walba soo laabta hadaan iska sixin dadku u barteen qofka asoo og inuu qalad ku jiro iska wicili karo ilaa suuqa ku dhumay mogta suuqa Swahili ku bartay maxay sameynayaan qof arkays dukaanka ku taagan yahay telefoon ku soo diray uu ku happy ala iska hadlay waa soo socdaa harabta in dhahdo mimi anakuja maxay isticmaashay mimi anakuja dadka badankood isticmaalo isoo giibay yaqaan dad waxa ku jira wiil fasalka fadhiyo oo mar walba isku day inay ka gooyo xogaha iska arag mar hada wax barto oo iska dibanta laakiin way ka go'ay akuna shida si waxa u badan maamooyinka nal rabte ayaga badan xogaha suuqa mar u badan noogu badan mise adeegi waxa u badan mimi anakuja maxaan isticmaashay mimi so tan waxa ugu fududahay u leenahay kuwaas ugu fududahay u leenahay nafsiga naftirkiisa soo qaadanay wax u taagan kuma wareerinayo usijaalinayo wax u taagan hawa ka warwalin laakiin qasbiyan markaas soo qaadato waxaan mar walba inay yihiin waxa sameeyay ina hudaas qaadato hudaas marka maxaa ku dhacay ficilka toos ugu dhagaan inta dhihi lahayd tusaale ahaan waqti kala qaadanayna nili kula oo kale hadaad mimi waa qaadan kartaa bas waa ka tagi kartaa ileen nidaas u taagan tahay mimi waa ka tagi kartaa nili kula maxaa marka mar cunay nita kula waa cuni doonaa nime kula waa heer ka hor cunay nina kula hadaan cunteena waqtiyadan u jeedaa kan marka mar walba sameeyaa waa soo kuwan ma qaadanayo nafsi wax u taagan ma qaadanayo maxaa toos u qaadana nafsi weynaa mar hada qaatane jaakan masuudiya qaadana toosa ficilka ugu dhijina mimi ukula aniga waxaan cunaa ugali meesha la isfahmo manayna yeye asaga la soco eraygan asoo saan u taagan macna ma laha ileen hadhow meesha nafsiga raba geli kara nafsiga meeshan geliyo ku xiranta ka macnihiisa
haddaan dhaho hadda mimi aan noogu jirta mimi aniga hukula waan cunaa haddaa yeye dhaho asaga wuu cunaahay noqonay so ereygan saan u taagan kaligiis hukula macna ma lahan nafsiga meeshas geliya ku xirantahay mimi hukula aniga waan cunaa yeye asaga hucheza wuu ciyaaraa mpira kubad haddaaro meeshas yeye waa ka tagi kara maxaan dhihi karaa sisi anaga hucheza waan ciyaarnaahay noqonay markaas hadhow meeshan tu waa ka dhex raadin ya meesha dhow tu waa ka dhex raadin already sisi yaa meesha qaadatay huda hadee mar meesha taalo nafsiga weyn oo meesha laga rabaa nafsiyada wax u taagan meesha kuma dhex isticmaalayso huda ficilka toos ugu dhagay saas darteed u leenahay waa fududahay sisi anaga hucheza waan ciyaaraa mpira kubad meesha isfahan weliba sharaxtaan dheeraad agsii bixinay intaan la karo maanay ka badan waxa u imaanayna marka isla macnihi rabnaa laakiin ina huda isticmaalo marabo maxaa isticmaala huwa maxaa dhacaya marka haddii huwa isticmaalayo waxa isticmaala waqti uliopo waqti hadda la joogo mimi aniga huwa waxaan ahay nakula mid cuno ugali mar walba cunaa yeye asaga huwa waxa waaye anacheza mid ciyaaro mpira kubad waqti kale meesha ma geli karin haddee mar huwa meeshan taalo waqtigan bisa meesha qaadana nafsigan ka hadlay waxa u taagana qaadana in hadda nina cheza ni ma qaadanin ileen marka waqti hadda la joogo uu taagan yahay naada ka soo qabanayna yeye na ina naas isticmaal lazima waqti kale meesha ma geli karin so tofauti ni hiyo tu hakuna tofauti nyingine mimi huwa nakula ugali iyo mimi hukula ugali hakuna tofauti yeye huwa anacheza mpira iyo yeye hucheza mpira hakuna tofauti mara maka tena hakuna talia ina kan isticmala sababu kwanza ni rahisi pili inafahamika kwa haraka so ciidan tan waa lagu fahmaa waan iska fududa isticmaaladeeda midaan jumlada kugu dheeraane siiba hadii insha iyo wax aqoonaysa kala mise jumlooyin wax hadii soo kale saana kaaga fudud startan amal markuu jirto sidoo kale jumla la imaa lagu dhacdo uu isticmaalayo saana kaaga fudud inta wax dheer ina qorto dhow damo wax aqoonti damo mistake oo badanayo so waxa u maleena ina isfahanay oo huwa afahanay fadlan ku celceli casharada dheeraadiga ah geeliyaasho kale oo badana YouTube-ki yaa lagu soo bandhigin oo kale hadii TikTok la soo dhigayna wax yar laga soo dhigo kale iskuulka ugu imaan kartaa casharada dhameystiran mise online ka soo dooran kartaa casharada way duuban yihiin koorsada isku xiyaan casharada waxa idinku baraarujinaa oo ku dhiirigelinaa in casharada soo birtiin wixii kale oo codsi ahna waa soo weydiin kartiin wabillahi tawfiiq